waa ku salaamay saaxiib. waxa uu odhanayaa surbaha riwaayadda ku jira dadka qaar waa xor madax bannaan, in badanina waxay isu malaynayaan in xor yihiin maadaama ay arkeen qoolkii oo qoortooda ka yeeri dabcay. in rumayso haddii aan ku idhaahdo qofku waxa uu helaa xorriyad u dhigantaa hadba inta uu ilaahay addoon u noqdo. mar kasta oo qofku hal jaranjaro kor u fuulo addoonnimada rabbigiisa isuu dhuldhigayo, ruuxdiisa ayaa kor u fanaata jaranjarrada xornimada. liddiguna waa sidaas oo kale, oo mar kasta uu qofku ka fogaado addoonnimada rabbigii wax kale ayaa uu addoon u noqonayaa. khasab maaha inaad wax u sujuuddo si aad addoon ugu noqoto, ee waxaa ku filan inaad maxbuus waxaasuu xidhxidhan noqoto uun. xilku mar ayuu qofka macbuud u noqonayaa, hantidu mar ayay qofka ilaah u noqonaysaa. yaanu uga sujuudine caadooyinka iyo dhaqannadu sida oo kale way dhacdaa inay dadku ilaah ka dhigtaan. saaxiib, dadka waxa ugu xornimo badnaa nebiyadii, maadaama ay ahaayeen dadka ugu badan dhanka addoonnimada rabbigood. innaguna mar kastoo aynu ka agdhowaanno heerkaas iimaanka nebiyada waynu xoroobaynaa. markaan u fiirsado sooyaalka bilaal binu rabaax, waxaan dareemayaa inuu dhaaday dhadhanka xorriyadda ka hor intii aanu abuubakar gadan ee aanu xoraynin. isla markii uu bilaal iimaanka la yimiba ruuxdiisa uga furfuray dumarkii addoonnimada ahaa, waxaana uu noqday xor madax bannaan. markii uu umaya ibnu khalaf inta uu dharka ka fayday jiifiyey ciidda kululee maka ee uu karbaashka iyo jeedalka la dhacayay si uu uga soo laabto diinta nebi maxamed salaallahu calayhi wasalam, isaguna sida caraysiga iyo qanaacada le u lahaa axad. markaas umaya jirkiisa ayuunbuu lahaa, ee ruuxdiisa bilaal isaga ayaa lahaa. xornimaduna waa inuu qofku ruuxdiisa hantiyo. abuubakar waxa keliya uu sameeyey waa inuu siiyey bilaal rasiid uu jirkiisa kaga xoreeyay addoonnimada. ruuxdase bilaal iimaankiisa ayuu ku xoreeyey in badan ka hor xornimada jirkiisa. nabaadiina saaxiib.